سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنكو سلامي دعوة ميل كسوات كجوكتا دافع عالم كي الدنيا كسودو مركلي موقال صب موقال كان أيا وحان كجهل دونا قصة جعيل وادي عدو حنون بدن قصة دني جعيل أيا وحايد أحمر تويري جبر صوماليات ويركا أيا وحا وكنو لي هي مقالة مقدشو عاصمة دلك صوماليا حلقة جبرنا يكون نشاهي ودن كجريجا wiilka waan magaciisa markii aan weydiinay diiday inuu sheego ayaa waxaan ka wareysanay taariikhda asiga iyo gabadha ku nool wadanka Giriiga iyo qisada jacayl ay dhaxmartay sida ay ku bilaabatay iyo halka ay ku dhamaatay waxa uu yiri sida tan waxaan ka bartay baraha bulshada gaar ahaan barta Facebook-ga waxaan wada haynay dad wada xiriira muddo kadib waxaan islamaanay amba isa siinay nafafkeena waxaan u hibeeyay qalbigayga waxaan siiyay hamigayga waxaan siiyay hankayga waxaan siiyay noloshayda intaas oo dhan ayaan isugu daray deed waxaan ayadana ay siisay nafteeda iyo noloshayda mar walba waxaan haynay dad isku kalsoon hami iyo han leh hadaf iyo hiigsi leh balse dadka bini'aadmiga Ilaahay abuuray ayaa kuwa aanan isku mid ahayn waa hooska labadiisa dhinac marba si ayuu noqdaa qofku laakiin qofka daacadda marna isma bedelo ee qofka beenalowga ee aanan aqoonin xaqiiqada saxda ah ee qalbi isdhaafsiga ay noloshiisu noqotaa hooska labadiisa gelin anigu waxaan ahaa qof mar walba naftiisa u hibeeya hankiisa iyo hamigiisana raaciya gabadhaas ku nool wadanka Giriiga run ahaantii nolosheedu waa iska miidhal ah ma ahi qof sabool ah mana ahi qof taajir ah ma ahi qof aad u qurux badan mana ahi qof aad u fil daran ama muuqaal daran waxaan ahay qof halabuura mar walba waxaan jeclahay inaan anigu ilaaliyo sumcadda iyo sharafta gabar walba gaar ahaan mid aan u hibeeyay naftayda waxa ay ahayd gabar mar walba hamigeedii hankeeda hadafkeeda iyo nolosheeda aniga oo kaliya aan ku jiro sidaan anigu aaminsanaa ambaan iska dhaadhicinayay balse sheekada ayaa ahayd rab allow nimaan wax ogeyn ha cadaabin gabadhu waxa ay ahayd mid danaheeda wadata waxa ay ahayd mid igu meel gaadha iguna waqti lunsata run ahaantii kama sheekayn kara intaan ka badan balse waxa ay ahayd mid mar walba aniga markii aan waco hadalkii macaysa nolosheeda ay dhista niyadda ay dhista hami fog isiisa han ay guuri ballan qaada nolol wanaagsan ay igu noolaysa run ahaantii waxaan aniguna yaqiinsaday inay tahay gabadhaasi gabadha kaliya ee nolosheeda u qalanta hamigeyga hankeyga ha anigu hore maan u soo guursan wiligeyna maan guursan mustaqbal horena maan yeelan jacaylkana waxba kamaan garanaynin ee waxa ay ahayd qofkii u horeeyay ee indhaha aan ku kala furto mustaqbalkaygana aan ku bilowdo si kastaba ha ahaatee waxa ay ahayd mid hagardaama iyo xanuun badan ii geysan jirtay waayo afka ayay ii macayn jirtay dhabarkana way iga toogan jirtay waxa ay ahayd mid mar walba igu waqti lunsata waqtigeeda uu kaliyana u xisaaban yahay run ahaantii waxaan iloobay time managementgeygii ama maamulkii waqtigeyga waxaan u iloobay waxbarashadeedii waxaan u daayay hami iyo han walba waxaan u daayay shaqooyinkaygii waxaan u daayay halabuurnimadeedii waxaan u daayay wax walba oo anigu aan lahaa waxaan nafteeda ku koobay ayada iyo jacaylkeeda allah muxuu ahaa jacayl aad u xanuun badan waxaan ahaa qof habeenkii aan hurdin maadaama wadanka Giriiga ay habeen iyo maalin dadka jooga ay isugu mid yihiin ay ka tirsan tahay qaaradda Yurub amba qaarad weynta Yurub balse anigu aan ku noolahay qaaradda Afrika gaar ahaan wadanka Soomaaliya kaasi gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya balse maalin maalmaha kamid ayaan ka codsaday inaan mustaqbal sameysano nani isguursano waan weydiiyay kumaan adkaynin kumaan celcelin hadalka si toos ayaan u dhahay abaayo waxaan rabaa inaan mustaqbal kula sameysto hamigeyga hankeygana waa adiga hadaf kale oo aan adihayna malihi ee diyaar mu tahay inaan nolol wadaagno mustaqbalna aan sameysano waxa igu dhahday ha diyaar ayaan u ahay maxaan ku diidaa balse saacadaasi وباشي anigu waxaan noqday qof aad farxad ay ugu tanbadisay qof noloshiisa oo dhan ay kala badbadatay waxaan niyeestay inaan yeeshay ayada mustaqbalkeedii hankeeda hamigeeda iyo nolosheeda
waxaan ka jeclaan lahaa mar walba niyadeeda ku jirtay in aan ka jeclaan lahaa maqnaashiyaheeda inay igula nooshahay magaalada Muqdisho si aan u wada cunno waxaan anigu soo shaqeeyo ugu wada hooyano hal hooy u wada huwano hal go u wada seexano hal sariir uguna wada ciishno hal waqti balse sheekadu sidaa way ka duwaneed waayo ogolaatay guurkayga waan isguursanay markii aan isguursanayna waxaan dareemayay cabsi fara badan waayo maanan aqoonin guurka iyo waxa uu yahay balse wax walba waxa igala weynaa jacaylka aan u qabay ayada run ahaantii ayada magaceeda waa Nuura waxa ay leedahay hal saaxiib waxaana lagu magacaabaa Shamsa waxaana lagu naaneysaa Barni waxa ay ku nool yihiin wadanka Greega waxa ay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho sanadii 2016 ilaa intaasna waxa ay ku nool yihiin wadanka Greega ee qaaradda Yurub run ahaantii hamigayga iyo hankaygu ma uusan ahayn inaan noloshayda iyo hamigayga iyo hankayga iyo mustaqbalkayga ay iga noolaato halkaas ayadoo kaliya waxaan tala galay amba aan ku tashaday inaan halkan ka talaabo si aan ayada ula kulmo nolol aan ula qaybsado waxaan gilgilay waalidkayga oo ah nolol dhaxana ku nool saboolna aanan ahayn taajirna aanan ahayn waxay ogolaadeen amba ay siiyeen warqadii ogolaashaha inaan dalka uga baxo oo aan aado wadanka Greega waxa la raadiyay saacadaas wada walba oo anigu layga diri lahaa halkan uma sheegin kuma aan dhihin xaas ayaa ii jirta balse waxa ay og yihiin inaan halkan ku madaxadeega ay tahay inaan aado waxbarashadeedii ha sheegin halabuurnimadeedii ha sheegin wax walba waan hayay waan ka tanasulay waanan iska iloobay si aan ayada u helo show god qiyaano ayaa halkaas ka qodnaa man aanan ogeyn muddo kadib waxaa bilowday inaan ayada u sheegay inaan u soo socdo halkeeda kana soo ambabaxaya magaalada Muqdisho anigoo u soo ambabaxaya wadanka Greega wada doonto safar doona dhirir doona masaafo doona aan u soo jiiro aan u soo guureeyo aan u soo gamo aan u soo gami waayo hurdalaan ha igula dhacdo nabayeenan igula dhicin waxa kaliya aan u soo jeeda ayaa waxa ay ahayd si aan ku gaari lahaa wadanka Greega si kastaba ha ahaatee maalmo kadib ayaa waxa iskhilaafay hadallo ayada iyo aniga deed waxa ay ahayd hadallo yar oo aan sii badnaynin qof walba oo lamaana ah dhaxgala waayo waxa jirta oraah English oo tiraada every relationship has conflict jacayl xiriir waliba waxa uu yeeshaa caqabad si kastaba ha ahaatee anigu kamaan xumayn inay caqabadaasi imaanaysa waayo waxaan aaminsanahay caqabad walba oo na dhaxmartay inaan ahay lamaana isqaba oo xallin kara guurkeena ayaa wax walba inoo ahaa xiriir walba asiga ayaa inoo adkeynayay balse ayadoo dan ma baysan iga lahayn waxay ahayd qof ay ku waqti lunsato habeenkii ay ku soo jeedo waqtiyada qaar ay ku malaawaasho hoolaha ay ku qabsato codkiisana ay dadka haasawaha kale kala dhaxeeya ay ka qaadato erayada asigoo ku hadlaya si ay uga haasaawdo ragga kale muddo kadib waxaa soo baxay in ayadu jeceshahay wiil kale si toos ay igu dayrisay iguna tiri kuma baahni waxaana haystaa jacayl kale dhulka ayaa ila gariiray carrada ayaa ila wareegtay wadankii ee halkii aan u socday ayaan baajiyay safarkiisii indha ayaa iga soo haray murug ayaa iga soo hartay guri waxaan isku xiro muddo isbuuc aan ku jiro xanuun fara badan aan dareemo waxaan arkay hubaashii noloshayda oo isii bedelaysa si kastaba ha ahaatee xanuunka waxa uu ugu noqday mid aad iyo aad jirkayga u sii dhaawaca qalbigaygana sii gala ma garan kartid halka ay noloshu kaaga imaanaysa laakiin ilaahay ayaa ii qoray kamana xumi run ahaantii maanta waxaan ahay qof noloshiisa dhisanaya ku soo laabtay hadafkii hankii gooliskii huigsanayay hadafkii hankii iyo halkii uu huigsanayay inuu hiigsada waxaan ku soo dhex laabtay asxaabteydii waxaanan jeclaystay inaan la wadaago qisadan xanuunka badan ee ugu dhacday dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto kaasi wuxuu ahaa wiil Soomaaliyeed oo muddo la dhibanaa jacayl ay ku abuurtay gabar Soomaaliyeed run ahaantii jacaylku ma aha wax lagu ciyaara waa midka kaliya ee haga nolol walba qalbiyadana mideeya hamigana sarreysiya
irsaaqada iyo nolosha iyo hadafkii hankana ay ku jirto ilaahayna uu soo marsiyo qofka kale qof uu jeclaaday waxay ahayd taariikhdaasi kooban waxaa ka hadlayay amba aan ka wareysanayay amba aan ka soo qoray wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Wadajir ee degmada Madiina run ahaantii waxay ahayd qiso aad iyo aad u xanuun badan qof walba oo Soomaaliyana oo ku qoys qaadan doono baraha bulshadana waxaa isaga badan mar walba qaladaadka noocaas ay ka dhaca ay noo soo gudbiyaan dhalinyarta Soomaaliyeed qof walba oo Soomaali ah oo xanuunsan oo jacayl amba hal xanuunsanaada jacayl amba qiyaano qof kale waxaan diyaar u ahay anigoo Cabdirasaaq Cabdi Nuur Cagadahab inaan halkaan uga sii daayo qof walba oo Soomaali ah oo xanuun haysta ilana soo wadaaga qisadiisa jacayl kaasi wuxuu wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir ee xaafadda Madiina انت قصة لعينك وكل مدونة سيدا اي نبادينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته